وهبينما 4 وخميس أي سوق ليسو تاريخ دنا أي كوبيغان تاي كودا بشا أكتوبر سنة كالباكون يشاني لباتن وأنا هباينا سوين وقبضتين وركي يا برنامج شدي أي نكسو قد بني برنامج كنا صباح نمو يكي قلب نمو عاوة وحان إذي كوهيا القسام وقرن وصو صارتي تفاصيل كصابسا إذن يدبابات كودا ويكو قررمستي قزا حوتي أولا شيغي إن عاوة قنتالو وكويرري مركلي إسرائيل كلا عرر كتاغن حلقان ميلا كلا دوان واي تلابيب كترتو وعسو كليان إذن هيا حماس إيو وزيرك قاشانديق إسرائيل وهذا الله كلها وضع إسمريي هذا ما تفاصيل شوحوكوها الله نكا وزيرك أو حماسنا أي كاقا جوابتي هذا ما وحالة تسنيا وحي لغا قري الجزيرة وحالة نكا ليرادو كاتس وحو شيغي قف كوهاري كارا غزة بجرو إلا قفكي كوهارا وحا الله أقونسانيا دقاليهن إنو يحي iyo inuu taageersan yahay argagixisada sida uu isagu markaa ku hadlay hadaba markuu wuxuu leeyahay meeshii ay gali waayeen oo ay nafta u timid oo mar walba nagta lagu hayo wuxuu leeyahay dadkii meesha ku noolaa ee iskaga haray laba midtiin uu leeyahay hadaa ka bixi weysaan kow inaad adinku muqaatiliintiin dadka dagaalamayaba inaad adinka tihiin number 2 inaad taageersan tihiin waxa uu ku tilmaamay argagixisada oo uu la jeedo muqaawamada marka ninka hadalkiisa ayaa marka wuxuu noqday hadal la yaab leh iyadoo dad masaakiina caruur dadda oo xataa aan ka qixi karin meesha ay joogaan ayuu wuxuu leeyahay ama ina muqaatiliin tihiin ama ina argagixisa tihiin hadalkaas marka durbaba waxa ka jawaabay Xamaas oo iyaduna caawa war soo saartay hadaba حماس waxay yiraahdeen tasriixaadka ama hadallada ka soo yeeray Katz waxay muujinayaan kuwa dambiyada dagaalka ku sii xoojinaya harakada muqaawamada islaamiga Xamaas waxay leedahay wasiirka dagaalka Israa'iil Katz ninka leeyahay waxa uu ku hadlay waxay muujinaysaa dambiyada dagaal ee ay galayaan ciidankooda oo ay ka galayaan dadka rayidka ah ee ku nool magaalada Gaza waxayna ugu baaqeen Xamaas mujtamaca caalamka iyo dawladaha carabta iyo kuwa islaamkuba inay arinta degdeg wax uga qabtaan oo ay joojiyaan xadgudubka cusub ay ku banaysanayso dhiiga dadka rayidka ah Israa'iiliyiinta sida ay yiraahdeen waxay yiraahdeen jariimo dambi oo ibaadadii ama xasuuqiya dhinac ka sii soconay dadka masaakiinta dhiigooda la balaysanaya inay dadka qaxi karin meel duqayna ka socoto rafaad ka socdo dagaal ka socdo ciidan lagu wareejiyay xagee dadka ka qaxayaan leey marka dadka dhiigooda la banaysana ama ina muqaatiliin tihiin oo dagaalyahanna tihiin ama ina taageersan tihiin argagixisada marka uu banaysana hadhow marka muxuu sameeyaa dadkii si arxan daraa u laynaya marka Xamaas waxa la adduunyada ogaada ninkan dhiiga dadkaas masaakiinta oo banaysanaya markii uu soo gali waayay Gaza taangiyadiisu ay soo cagdhigi waayeen oo nagta laga saaray ayuu hadda wuxuu u hanjabayaa dadkii masaakiinta ahaa ee halkaa ku jiray qodobka isaguna halkaas kaga gudbaynaa qodobka kale ee xiisaha leh caawa wuxuu yahay al-Qassam ayaa war soo saaray iyaga iyo Saraayal Qudus siday tahan uga adeeganay nimankii toogasho meel fog ahna nagta uga saarnay dabaabaadkoodii iyo baabuurtoodii gaashaaneedna waa gubnay leeyihiin haddaba marka aan idin tuso tafaasiisha wararkii ugu dambeeyay caawa la soo saaray al-Qassam waxay sheegtay inay askari toogasho meel fog ku dileen waxay soo kale sheegeen inay bartilmaameedsadeen gawaarida Israa'iiliyiinta ee gaashaaman gudaha Gaza iyagoo soo galay haddaba tafaasiishu way sii socotay waxa leeyahay dagaalyahanka Xamaas garabkooda militariga ee al-Qassam arbacada maanta waxay soo bandhigeen muuqaal ay ku bartilmaameedsanayaan ciidanka Israa'iiliyiinta iyadoo dagaalyahanada ay markaasi la dirirayaan oo ay markaa ka hortageen aaliyaadka ama baabuurta militariga Israa'iil ee soo galay Gaza al-Qassam waxay sheegeen inay markaasi ay garaaceen goobo kala duwan iyagoo markaasi sheegay inay si fiican uga shaqaysteen hawlgalka difaaca ay ugu magac dareen Asa Musa
kaasoo ay sheegeen inuu ka hortagay weerarka ay ugu magacdareen israa'iiliyiinta carabaad gadacood 2 kaasoo ay sheegeen in markaa ay nagta kaga saareen. dhanka kale waxay sheegeen inay u isticmaaleen weerarka gantaalaha garabka laga gano ee la yiraahdo Al-Yaasiin 105. dhanka kale waxay sheegeen Al-Qasaam inay isticmaaleen hoobiyayaal ay la dhaceen goobo ay ku kulansanaayeen ciidamada gumaystaha sida ay sheegeen Gaza. dhanka kale waxay yiraahdeen Saraayil Qudus iyaguna inay weeraro iyaguna ay gooni u qaadeen oo ay nagta kaga saareen iyagoo sheegay inay duqeeyeen deegaanada la yiraahdo Qulaaf Gaza oo ku hareeraysan magaalada Gaza halkaasoo siiriga digniinta laga maqlay. waxaa sidoo kale jiray howlgallo labada dhinac ay si wada jira u fuliyeen oo Gaza ka dhacay. marka nimankii markay cagta soo dhigaanba madiinatu Gaza meesha la leeyahay nagta laga saaraya wayaabayhi meesha maxaa ku jiray oo midda wasiirka gaashaandhigga uu leeyahay wax meesha ku jira waa dagaali hadiid ama waa wax iyaga dagaali hadiidta la socdo markuu leeyahay nimanka naftay u yaabeen dhanka kale barnaamijkaygii galabta aad u xiiso badnaa dadka aan daawan way daawan karaan markaa barnaamijkan daawato ayaa daawanaysaa Xamaas oo diidan sida la leeyahay hubkooda inay dhigaan. sheekadu marka waa sii xumaanaysaa iyo ninkii Trump ahaa oo arrin la yaab la saxiixay. marka barnaamijka galabta ayaad ku daawanaysaan dadka daawadayna way ku mahadsan yihiin. marka dhanka kale Israa'iiliyiinta wasiiradooda ayaa iyaguna loo gudbiyay hindisaha iyaguna way isgaadgaadayaan waxay sugayaan Xamaas natiijada ay ka soo baxda hadday toos u diido Xamaas iyaguna markaas ay ka hadli doonaan. marka halka marka waxaa socdaa leeyahay wax aan rajo wanaagsan ahayn inkastoo hadda aan arkayay war ka soo baxay golaha loo dhan yahay qaramada midoobay jimciyadda ee gudoomiyahooda oo leh Israa'iil iyo Xamaas labaduba hindisaan waa midka ugu macquulsan nabadda Gaza waa in la aqbalaa. marka hawsha iyaduna way socotaa. qadar xayisiisha kadib caawa barnaamij kale oo gantaalaha soo qaaday inkastoo xootigu weli aanay hadlin Yaxya Sariic uusan weli war soo dirin laakiin waxaa aflabadii qaylinaya ciidanka Israa'iiliyiinta iyaga bilaabaya. haddaba marka aan idintuso Al Jazeera wuxuu leeyahay ciidamada Israa'iil caawa waxay sheegeen inay markaa ka hortageen gantaal ka yimid Yaman. ciidanka Israa'iil waxay sheegeen dhanka kale in ay ka hortageen sida la leeyahay diyaarad drone oo iyaduna ka timid dhanka iyo Yaman. waxaana ay sheegeen inay soo rideen markii ay intaanay soo gelin hawada Israa'iil. marka waxaa la siiriga yeeraya dadka kala cararaya airportka diyaaraduhu joogsanayaan nimankan nafti u timi xoogaa markii la joogaba gantaal soo ridayaan xoogaa markii drone soo ridayaan iyagu wax kasta lagu sameeyay. Israa'iil waa weerareen way qaaday waxbay soo sameeyeen gantaala meel yaalaan ma taqaano diyaaradahan meel laga soo tuuraa ma taqaano magaalo caadi iyo dekadii iska soo duqeyneen waa soo laabaneen ay soo laabato nimankan waa dul taagay nimanka yabariyata niman caadiya ba nimankaas marka gacana loo taagay. barnaamijkayga caawa intaa ayaa kusoo gabagabeynaya. fakarkiina aragtidiina waa noo muhiim. fadlan haddii aadan daawan barnaamijyada subax iyo kii galabtii oo aad u xiiso badan waa daawan doontaa. inta daawatayna way ku mahadsan yihiin. intaan mar kale kulmayno nabadgelyo.